كلونو مهد علينا سراك ciidankii fuliyay howlgalka kuwa dhiiga bini aadamka caadaystay halka yaala waqtigooda ka gutay waajibaadkii ku haboonaa waa u mahad celinaya ayaga iyo horintay ka tirsanaayeen iyo ururkay ka tirsanaayeen iyo guutaday ka tirsanaayeen iyo qaybtay ka tirsanaayeen iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed oo mahad celinayna waxa kale oo rabaa in si dhaba loo ogaado qofku hadduu waajiba qof kastoo shaqeeya abaalmarin uu leeyahay qofkii si xun u shaqeeyana ciqaab uu leeyahay qofkii wax fiican qabtaana birimi uu leeyahay iyo dalacaad annaga waxa aan hore u ballan qaadnay ama aan ka hadalnay may ahayn in qof dulminayne cadawga in la dabar jarana waa rabnay qofkii wax wanaagsan ka shaqeeya in la birimiyaareen ujeedadu intaas ay ahayd inta faa'iido ku soo aroortay sida culimadu ay noo sheegtay aakhira janna lagu gelayaa oo diinta islaamku qabto cadow ka hara waaya oo waa shidada ummadda Soomaaliyeed dhiigooda caadaysto fayraska in la suuliyo la rabo oo kugu soo duusho meeshii ummadda Soomaaliyeed ka yimaadeen yaa garanay meel ka yimaadeen faa'iidada labaad oo saddexaad oo ku jirtaana waa in qofkii dhididay dhididkiisii la siiyo tan afraad ay ku jirtaana aniga iyo shabaab oo dagaal isla ba'anina dhaxmaray abaal baan u hayaa cid kastoo tilaabta qaad waxaan rabaa lacagtani waa laba nin ku soo ma lacagtani $10,000 waay waxa la ii sheegay ciidankani inuu ka tirsan yahay guutada shanaad ururka 39aad waxa dhinacayga taagan taliye xigeenka ururka 39aad Master Farax $10,000 waay u gudoon mid ka mid ah askartii ka fulisay howlgalkaasi qorshaysan Moqokori ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan uga mahad celiyay fulinta ballanqaadkii uu sameeyay waxaana uu fariin u diray dhammaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira argagixisada al-shabaab waxaan sheegaa markay gobolka gobolku waa mahadsan yahay waxaan sheegi rabaa marka waa hal qodob marka koobaad halka qodob wuxuu yahay $10,000 waa halkii xambo oo shabaab oo baqtiye baaba lagu bixinayaaba ninka marka 30 riyood leh degan shabaabka oo maalin bari ka qaadana waxa uu sheegayaa miidiyaha qof walba way arkay daawin joogtaa waxa uu sheegayaa waxa uga badanba $10,000 ka badan 30 riyood oo mid maalin laga wadanayo bema sheegay ya inuu intuu mid dilo oo iskaga soo tagaba noo yimaada aniga $5,000 leh ila kuwa dadkan markii hore ahaa yaqaan xoolaha ka qaadayo ag taagan maaho asigaas inuu awadaas dilo jidka uu soo mar 30 riyood halkan raac durka ma qabataan haday rabaan 30 riyood maxay tahay $10,000 waa tanaba anaga shabaab hasuuga naga dhaxay asna waan hasuugay rag badan oo naga qaba annaguna waa inaan ka argoosanayna ilaahay aan ugu ballan galnay inta aniga ila midana waxaan u sheegaa inay ka argoostaan gudoomiyaha gobolkana waad u jeedin ballanqaadkiisii inuu fuliyo wad arkaysaan waxaan sheegayaa marka maalin qof kasta ee jaanis ka heshaa waa in ay shaqaysta